muxuu Ousmane Dembele ka yiri tartankii uu Yamal kaga dulqaaday abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadkan? Xidiga Paris Saint-Germain Ousmane Dembele oo ku guuleystay Ballon d'Or 2025 ayaa ammaan u jeediyay da'yarka Barcelona Lamine Yamal xafladii lagu qabtay magaalada Paris. Isagoo ka hadlay tartanka abaalmarinta ugu sareeya kubadda cagta, Dembele wuxuu yiri, "Waa wax fiican inaan la tartamo Lamine Yamal. Dhammaantiin waxaan daawanaynay qaab ciyaareedkiisa xil ciyaareedkan oo dhan. Waa ciyaaryahan heer sare ah oo leh xirfad aad u sareysa. Waxaan aaminsanahay inuu ku guuleysan doono koobab badan oo ay ku jiraan Ballon d'Or. Tartankii aan la galnay wuxuu ahaa mid qurux badan." Hadalladan Dembele ayaa yimid kadib xil ciyaareed taariikhi ah oo PSG ku hogaamiyay ku guuleysiga 4 koob oo waaweyn oo ku jiro Champions League ugu horeeyay ee taariikhda kooxda. Dhankiisa, Yamal ayaa lahaa xil ciyaareed weyn oo Barcelona ah, isaga oo ku dhameystay kaalinta labaad ee Ballon d'Or isla markaana ku guuleystay Copa Trophy oo la siiyo ciyaaryahanka da'yarta ugu fiican. 18 jirkan ayaa si weyn loogu aqoonsaday inuu yahay jiil dahabi ah, taas oo ka dhigtay tartankii abaalmarinta Ballon d'Or mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa sanadihii ugu dambeeyay. Dhinaca kale, aabaha Yamal, Lamine Yamal waa la dhacay dhabtii. Aabaha dhalay Lamine Yamal ayaa muujiyay niyadjabka uu ka qabo natiijada codbixinta Ballon d'Or. Garabka Barcelona ayaa galay kaalinta labaad ee abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan xil ciyaareedkii hore, iyadoo abaalmarinta uu ku guuleystay garabka PSG ee Ousmane Dembele. Ma ahan dhac, balse dhaawac niyadeed baa dhacay. Lamine Yamal waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida shaki la'aan, mana oranayo sababtoo ah waa wiilkayga. Wuxuu u ciyaaraa heer aan cid kale kula tartami karin. Wax aad ula yaab leh ayaa dhacay. Sanadka soo socda Ballon d'Or waxaa qaadi doona xidig Isbaanish ah, ayuu yiri aabaha Lamine Yamal, Munir Nasrawi. Enzo Maresca, haddii Liverpool sidan ku sii socoto waa waxaan macquul lahayn in la joojiyo. Tababaraha Chelsea Enzo Maresca ayaa ka walaacsan awoodda Liverpool ay ku difaacanayso horyaalka Premier League, isaga oo sheegay in kooxda Arne Slot ay noqon karto mid aan la joojin karin haddii ay sidan ku sii socdaan. Liverpool ayaa haatan hogaanka horyaalka ku haysa 5 dhibcood kadib bilow quman oo xil ciyaareedkan ah, taas oo muujinaysa sida ay ugu hanqal taagayaan inay mar kale difaacdaan Premier League. Maresca ayaa yiri, "Haddii ay sidan ku sii socdaan, waxaan u malaynayaa inay suurtagal noqon doonto in la gaari waayo. Kaliya anaga ma ahan ee dhammaan kooxaha kale ayay qusaysaa. Waxay sameeyeen shaqo cajiib ah tan iyo sanadkii hore. Ciyaartoydan ay soo iibsadeen waxay muujinaysaa niyadda kooxda inay mar kale u dagaalmaan Premier League iyo Champions League. Arrintaasna aad bay u caddahay." Ugu dambeyn, Paul Scholes, Rashford si dhab ah ayuu Manchester United u qiyaamay. Halyeygii hore ee kooxda Manchester United Paul Scholes ayaa si adag u dhaliilay weeraryahanka garabka bidix ee Barcelona Marcus Rashford kadib markii uu 2 gool ka dhaliyay Newcastle. Scholes ayaa yiri, "Shaki kuma jiro in Rashford uu leeyahay hibo cajiib ah. Wuxuu ku muujiyaa ciyaaraha waaweyn sida kulankii Newcastle. Goolkiisii labaad wuxuu ahaa mid heer sare ah, laakiin aniga shakhsi ahaan way igu adag tahay inaan dhab ahaan ula dabaaldego isaga sababtoo ah dabeecaddiisa. Markii uu Manchester United ka tegayay, aniga waxaan u arkay dhaqankiisa mid ceeb ah. Haddii ay tababaraha iskhilaafeen, waa wax dhici kara, balse waxaa wacnad inuu qiimeeyo 80,000 ee taageere ee garoonka u soo daawasho tegay. Intee jeer ayaan arkay isaga oo u soconaya sidii qof aan xiiseynin kooxda. Waxaan u arkay inuu dhab ahaan qiyaamay Manchester United. Haddii aad hal mar qiyaanto, waad ku celin doontaa." Xitaa Barcelona ayaan ku arkay calaamado la mid ah. Mararka qaar uu diidaa inuu dib u soo ordo ama uu kooxda u shaqeeyo. Taasi Barcelona muddo dheer kama qarsoomi doonto. Marcus Rashford ayaa 2 gool u dhaliyay Barcelona kulankii furitaanka wareegga kooxaha ee Champions League oo ay Newcastle 2-1 kaga adkaadeen. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta ee caalamka. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.